عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. On the authority of Abdullah ibn Mas'ud, who said, "The Messenger of Allah, and he is the truthful, the believed, narrated to us. Verily the creation of each one of you is brought together in his mother's womb for 40 days in the form of a nutfa, a drop, or sperm. Then he becomes an alaka, clot of blood, for a like period, then a mudga, morsel of flesh, for a like period. Then there is sent to him the angel who blows his soul into him and who is commanded with 4 matters. To write down his rizq, sustenance, his lifespan, his actions, and whether he will be happy or unhappy, i.e., whether or not he will enter paradise. By the one, other than whom there is no deity. Verily one of you performs the actions of the people of paradise until there is but an arm's length between him and it. And that which has been written overtakes him, and so he acts with the actions of the people of the hellfire and thus enters it. And verily one of you performs the actions of the people of the hellfire, until there is but an arm's length between him and it. And that which has been written overtakes him, and so he acts with the actions of the people of paradise and thus he enters it. Bukhari and Muslim. Ibnu Mas'ud Allah raali ka ahaadee wuxuu yidhi: Nebiga naxariis Allah korkiis ahaatee wuxuu noogu sheekeeyey ee isagu ah saadiq, run sheeg, almasduq iyo la rumaystee. Abuuridda midkiin wuxuu uurka hooyadii ku jiri doonaa 40 maalmood sida nudfah mise dhibic. Markaas waxay noqon doontaa xinjir muddo intaas oo kale ah. Markaas waxay noqon doontaa buro hilib ah oo muddo intaas oo kale ah. Markaas ayaa malag loo soo diri, ruuxiina lagu afuufo, waxaana lagu amri doonaa 4 eray oo kale ah: inuu qoro risqigiisa, cimrigiisa, shaqadiisa, iyo inuu dhiban yahay mise qof badbaada. Eebaan ku dhaartaye ka sokow ilaah kale, midkiina wuxuu fali camalka ehlu jannada intay u dhaxayso isaga iyo jannada wax cudud ah oo keliya. Markaa buu kitaabku haleeli doonaa, markaasuu falayaa camalkii ehlu naarta, wuuna geli. Midkiinana wuxuu falay camalka ehlu naarta intay u dhaxayso isaga iyo naarta wax cudud ah oo keliya. Markaa buu kitaabku haleeli doonaa, markaasuu falayaa camalkii ehlu jannada, wuuna geli. Bukhari iyo Muslim.